intii wiilashaas shuhadada ah ee dhabarkeena ku sawiran ayaa marka hore u duceyneynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u rajeyneynaa inuu jannadiisii ka waraabiyo dadkii waxgaradkii meesha ka hadlayna kulligoodna waa mahadsan yihiin sida dareenka leh ay u muujiyeen dhibtaas iyada ah iyo annagana sidaan ugu mitidnay in aan wiilashaas dhiigooda laga dhigin mid bilaa macno ah wixii aan dhihi lahay oo dhan horta ayaa la sheegay dhowr qodob oo koobanaan dul istaagayaa midka koowaad ee horey loo sheegay waxaa waaye in habeenkii weerarkaas dhacay oo magaca dowladda iyo ciidankii dowladda iyo maaragtay awooddii dowladda naloo isticmaalayay professor xasan sheegay ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa in nala ka takhaluso inta kalena ay ku cibro qaadato ay magaalada ka cararto dhaqanka maalintaas bilowdayna ilaa iyo ay ka timaado kayskii ikraan tahliil uu isdaba socday saa la socotiin oo waxaa anagoo mudaaharaadayna waa tii nala weeraray oo qaarkiin aad nala socoteen labadii madaxweyne ee dalka kasoo taliyey hotel ay joogaan waa tii la weeraray maxaan kuu sheegay baydhabo waa tii ciidanka etoobiyaanka lagu weeraray ayada nafteeda waa tii diyaarad inay degto loo diiday madaxdii ay saaran tahay dalkan waxaasoo dhan hal ujeeday leeyihiin oo ah dadku ha cabsadaan cabsi ha lagu xukumo dadkaas marka talada dalka haya waxaysan garanin dadka Soomaali guud ahaan iyo dadka deegaankan in cabsi lagu xukumi waayo sideedaba ciidan intaas ka badan dowladda Itoobiya keentay 30,000 ka badan dadkiina waa ku xukumi waayeen kuwa kale ka sii horeeyo qoramada midoobay iyo Mareykan iyo adduunka dhan ka socda waa lagu xukumi waayeen ninka marka maanta ku riyoonaya dhowr wiil oo intooda badan laga yaabo inay deegaan ka soo jeedaan oo askar ah oo inta maleeshiyaadka laga soo bixiyay la tababaro oo dawlad laga dhigay ciidan laga dhigay raba inuu dad ku cabsiyo waa nin lunsan runtii waa nin lunsan laakiin ujeedka wuxuu ahaa in annagana la ka takhaluso inta kalena ay ku cibro qaadato mar raba xataa warkii madaxtooyada markaas yaalay in hadda meelahan ka sheego wax munaasib ma ah oo lagu sheekeysanayo oo taariikh hore loo celinayo waxaana ogaatiin dadku haday dulmiga ka aamusaan marka dambe ayagu ku yimaada xukunka Soomaaliya maalintii la boobay 69kii inqilaabkii la boobay raggii laga boobay talada dalka hayay ee sida dimuqraadiga loo soo doortay ee la xiray markii la soo daayay ma aysan u halgamin in xukunkii laga boobay midkoodna halgan ma gelin aadan Cabdulla Cismaan Allah u naxariistay u weynaa beertiisu iska aaday intii kalena qaar safiiray noqdeen qaar waxaa laga dhigay maareeyaal wakaalado shaqa dawladii xukunka boobtaa shaqa kala siisay meeshaas aynu ku tageen xukunkii la boobayna sidii loo haayay oo maalina waqooyiga Soomaaliya diyaarada lagu duqeynayay maalina waqooyiga bari ceelasha loo sameynayay maalina gobolada dhexe taangiye dadka loogu leynayay ilaa iyo markii dambe jubbooyinka gaartay waa duumay dawladii korkeeda ku duntay dulmigii socday ayay ku duntay hadaa marka dulmiga bilawgiisa ah ka aamusto dhamaadkiisa adoo ku iimaanaya waa iska dabiici waa sida ay tahayba hadda marka nidaamka jooga oo kali taliska ah ee awoodda iyo ciidanka intaas isticmaalay wuxuu rabo waxa waaye dadkan inuu kala luusho rabaa wada dhaqankiisa meel biil lagu qoro kii siyaasi yiraahdo xildhibaan ku haya dhulkan iyo jiifo kii kale oo yiraahdo waxaan ku soo wadaa iyo joog adiga hadhowdii markaa soo guuleystaan ra'iisul wasaare ku haya mid la yiraahdo adiga hadeertan hadlin waa lagu soo celinaa meeshaada dadkii yaa rabaa wuxoodii in loo kala gado xukunkoodii loo kala gado canshuurtoodii ayaga lagu kala gado canshuurtoodii lagu kala gado ciidankoodii ayaga loo adeegsado ayagana iska fadhiyaan markaas oo ay noqdaan dad meeshaas ka ah marti annaga taas inaan diidna u taaganahay inta annagana la midka ah waxa aan diidanahay ee aan targetka u nahay annaga intana la midka ah oo weerarka nool kugu hayo waa intaas uun ninka hadda xilkiisa dhamaaday ee awoodda sida xoogga ku joogaa magaalada waa yimid 48 maalin oo joogay dalkana waa u tartamay madaxweynuhuna ka noqday cid tiri ma leh muddada joogtana waa hal bil deegaankana kama soo jeedid shaqana kuma lihid cid tiri lama arkee nidaam siyaasadeed oo dhisan oo hanaan ah iyo ku tartamay dadkii saas yeelay wuxuu u haystaa inay yihiin dad doqomo ah oo xukunka iska wareejiyo waxba kale weyn oo haystaa inaan nahayba oo wuxuu leeyahay sabab xukun iskaga wareejinaa ani sabab xukun ku wareejinaa maanta oo dhan marka caqabad cusub mushkilo cusub dadna waa u helay runtii
oo ka soo jeeda Soomaali qaybaheeda kala duwan oo saas ugu shaqeynayaan waa u heliyay oo dadkooda ku noco oo dadkooda ugu hor keeno oo ay saas ugu shaqeeyaan na waa heliyay marka maxay noqotay marka in hooyadiina labadii wiil ay dhashay gabadh iyo wiil isla socda bajaaj saaran la dilo mid kalena gabadheedii niise lagu dhex qalo annagana wiilasheenii la soo bilaabay la dilay kuwii madaxa dalka ka soo ahayna la weeraro ya welina la yiraahdo xukunkii ana haysto haddaanan boob doorasho ya aan ku soo noqonayn doorashada haddaan la ii boobin ma jirto bal ilaahan ku dhaartay ninka loo haysto Ikraan Tahliil ee kursiga loo soo boobay ee guddi beenaha la yiraahdo xalinta khilaafaadka ay dhahaan kursigan ansax waaye ayagoo qabiilkii iyo nabadoonadii kursiga iska lahay ay taagan yihiin ya oo laga aamusan yahay oo la leeyahay doorasho socota dalkana xukuumad iyo ra'iisul wasaare iyo dowlad goboleedyo ay rabaan inay doorasho nooga qabtaan bal waxa ay sameynayaan fiiri war dadka Soomaaliyeed dowladnimada farmaajo nacsiiyay markuu ku dulmiyay oo mid ku duulo iyo mid uu ku laayo iyo mid uu jid u istaago iyo mid uu isbaaro u dhigtay ay noqotay madaxda dowlad goboleedyada iyo ra'iiska xukuumadana intii yareedo dowladnimada ku dhimaneed ay dadka nacsiin rabaan oo maxay tahay doorasho boob ah oo dhac ah oo tuuganimo ah al raba in la qabto la isgana marqaati kaco wallahi Soomaali saas ku wada joogeen haba ka yaabinba taariikhdana ma dhici karta waa mustaxiil ba waana sababta Afghanistan lagu kala tagay waana sababta Ethiopia dariskeena lagu kala tagay oo la isku dilay hadda taangiyo iyo diyaarado iyo baashi maxay drones la isku garaacayo war waxaas waxa lagu wada joogi karo dadna ku wada joogi karaan maaha qofka rajo ka qaba waxaas inay dawlad noqdaan ee doorasho noqdaan waa qof waqti iska luminaya wuxuu sugayaa on maalinta ayatiinkiisa ku soo kordumo saas daraadeed waxaan la ka rabaa inaan ilaashano dawladnimadeena saan ku ilaashan karnaa waxaan ku ilaashan karnaa inaan foojignaano soo taagnaano wiilashaas waxaan u xusaynaa dad badan la yaaban shan way tiradoodu waa yartahay ragii operation ka qayb qaatay waa runtiis gudoomiye ku-xigeenka Said Cali soo sheegay maalin walba jidkeena hor imaadaan ana la cafiye ku hayaan ummadda Soomaaliyeed ay cafi kartaan dhana anaga soo istaag idaacadaha imaaw waa la cafiyo dambigaas aan galay dheh kii dhaho annaga hadda waxba uma haysano soo sheegay professorka cadaaladda iyo majraageeda qabsad doona maalinta kamida annaga ma dadka cadaaladda horkeena ogaada cadaaladda ayadaa rabaa inay hor keento dadka marka meelay taagtaagiin habeenkaas waa la isticmaalay Sooma kulligood waa la adeegsaday maanta maxay hayaan waxa ma hayaan kuwa hadda askarta ah ee taliyaasha ay ciidan ku jiraan saas un baa loo adeegsan barina waa laga dhaqaaqayaa markii laga danaysto waa in ogaadaan marka intii adiga laga danaysa lahaa oo lagu danaysa lahaa oo nin kale aad u shaqeeyay oo nin kale u adeegi lahayd oo lagu dhihi lahaa hadda hal midaa la baxiyo waxa la yiri adiga waa lagu shaqeystay xasaanada lagu sameeyay xildhibaan laga dhigaa maxaa yaasiin looga dhigaa xildhibaan hadduu si dambi gelin mooska taliyana wasuud waa moo iska joogo taliyana wasuud ku simaa waa moo meesha iska joogo waxa xasaanada loogu sameeyaa leen dhana soo socdo kuwii niisa joogo gabadha qalo dhana rabaan inay xasaanad qaataan ma laga haraayo ma kaliya wiilashan kuwii ikraan qalayna xasaanada haday qaataan xataa looga hari maayo waxa uu tarimaysa xasaanada waxba waqti isaga luminin dadka Soomaaliyeed waxaan ku raacsanahay professor Imam war dadka deegaankan waa inay helaan haday dhaqan tahay ama haday siyaasi tahay ama haday ganacsi tahay dad soo jeedo dadkooda ilaalinaya waa inay helaan maaha inay sidii maatidii iyo dad aan waxba ahayn bay u dhaqmaan sax ma aadi aadan kaga mahadcelinaa in xafladan nagala soo qayb gasheen intiina badan aan la xustaan sanad walba oo aan la xasuusataan shuhadadan oo aan dalkeena iyo dawladnimadeena ilaashano oo aan ku mitidno oo aan annaga hadda marqaati ah inteena nool hadda ganacsi hadda siyaasi hadda sheekh hadda dhaqan yahay taariikhda inta maanta noolaa wax laga weydiin doonaa sida intii 69kii markii xukunka la boobay wax looga weydiinayo maanta waa ma santiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.